شاب بلا أخلاق مصيبة جسيمة، فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة، إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظلم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalahayga qaaliga ah waa idin salaamay meel walba oo adduunka aad ka joogtaan. waa walaashin xayaado idin leh kusoo dhawaada mar kale iyo channelka cooking xayaat cooking and beauty gacmo furan iyo qalbi saafi ah igu soo dhawaada insha Allah. maanta waxaan idinla wadaagayaa macmacaan yar oo aad u fudud insha Allah, waana ka heleysaan sida aan rajeynayo axibaayi. waxaan ka sameyn doonaa buskudkaas aad arkaysaan. waa 2 baakad buskudka, marka aniga hadda intii igu filnaato ayaan ka isticmaali doonaa insha Allah. haddii hal baako igu filnaato halka baako ayaan isticmaalayaa oo ta kale waa iska reebayaa insha Allah. sidaa ila socda. subag ayaa u baahanahay sidoo kale. subag ayu nooc uu yahay, haddii aa haysatid blue band waa isticmaali kartaa, batar caadi, margarina, ayu yacni subag aa haysatid ayaa isticmaali kartaa insha Allah. marka hadda buskudka waa aragtaan, baakadii waan kasoo bixiyey. halka bacaaba enough ah, say u badan tahay waa ujeedaan maasha Allah. marka halka bac ayaan isticmaali doonaa insha Allah asxaabteeda, sidaa ila socda. buskudka markii aan meesha ku rido insha Allah, adiga haddii aad markaas mashiin haysanin waa jajabin kartaa, waa soo budeynaysaa. intaa bac ku shubtid ayaad yacni kasha u qaadanaysaa oo aad kusoo garaacaysaa. haddii aad mashiin haysatidna kaba fiican, mashiinka yacni cuntada aad ku shiidatid oo food processka ayaa kusoo shiidaysaa insha Allah. isagoo qalalan ayaad ku ridaysaa, wax biyo ah ama qoyaan ah ma taabsiinaysid, isagoo kaligiis ayaa soo shiidaysaa insha Allah. marka hore aniga gacanta ayaan ku jajabinayaa, kadibna mashiinka ayaan kusoo shiidi doonaa. ila socda si aad u aragtaan insha Allah walaalahayga. marka asxaabteeda waa aragtaan, buskudkii waan soo shiiday ama waa soo ridqay, mashiinka ayaan kusoo shiiday, baaquliga ayaan kusoo celiyey. waxaan kaloo u baahannahay hadda subagii. subaga waa nus haaf ama nus koob ama nus bakeeri, hadba sida u taqaanid ama aa u fahmaysid insha Allah. subagii ayaan kiskis ugu darsanayaa. teeda kale subaga markii aad ku dareysid hal mar ha ku wada gabsiinin, maybe inuu yacni saaid kaaga qoyo buskudka. marka anaga saas ma rabno, kiskis ayaan ugu daray sida aad u jeedaan asxaabteeda qaaliga ah. marka waan walaaqayaa, si fiican ayaan u walaaqayaa insha Allah, si uu yacni qoyaanka subaga u gaaro buskudka, uu yacni dhinacna qaleel ka noqonin, dhinacna uusan ka noqon qoyaan, si yacni isu dheeliran inuu noqdo ayaan rabaa qoyaankiisa insha Allah. waan ku wada walaaqayaa sida aa aragtaan ilaa yacni iska dhex galaan. marka walaalahayga sidaa ila socda insha Allah, si fiican ayaan u walaaqayaa. teeda kale inuu saaid kaaga qoyo ma fiicno. marka hadda asxaabteeda baaquligii aan ku dubi lahaa waxaana ku shubayaa sida aa aragtaan. buskudkii ayaan ku shubay, baaquligana waxa waaye yacni birta keega lagu dubo ama baaquliga keega lagu sameeyo, sida aad u jeedaan oo yacni indhihiinaba aad ku aragtaan. marka waan ku wada fidinayaa axbaabi ilaa yacni geesaha uu ka wada gaaro insha Allah. sida ayaan ugu wada fidinayaa. I hope inaad si fiican u aragtaan sida aan yacni u sameynayo. marka waan ku wada fidinayaa isaga dhan, yacni waan ku dhajinayaa si yacni uu geesaha kale uga halaabin, oo intii aan ugu talagalay kaliya uu gaaro insha Allah. waa kasoo celinaysaa geesaha kor hadduu kaa gaaro, yacni wixii aa markaa ku waxeynaysid ayaa kaga soo celinaysaa qaandada insha Allah. ani hadda caaga guduudan ee miikowga ayaan yacni ku fidinayaa, kan ayaana fiican oo softi ah insha Allah. digsi ayaan soo qaatay. digsigii waxaan ku shubayaa sida aad aragtaan caano booro, hal qaanda ayaan ku shubay. haddana waxaan ku shubayaa qaandadii 3aad ilaa 4 qaanda ayaan u baahanahay insha Allah. qaandadii 4aad ayaan ku shubay. haddana waxaan kaloo u baahanahay insha Allah biyo ayaan u baahanahay iyagana. biyaha waa arki doontaan inta يعني inta koob aan ka isticmaalayo waa arki doontaan insha Allah.
bakeeriga ayaan ku isticmaaleynaa ama aan ku cabirayaa biidnillah. hal koob ayaan hadda ku shubay ilaa yacni 3 koob oo kale ayaan u baahanahay. 3 koob oo biyo ah iyo yacni 4 qaando caano ah ayaan yacni isku qasayaa insha allah. koobkii labaad ayaan ku shubay hadda, kadibna waxaan ku shubi doonaa koobkii saddexaad. asxaabteyda ila socda insha allah. marka waa walaaqeynaa, si fiican ayaan u walaaqayaa biidnillah. caanaha iyo biyaha inta iska dhex galayaan, adiga caano walba oo haysatid waa isticmaali kartaa. marka hadda waxaa u baahanahay warango ama cornflour, vanilla insha allah, iyo sonkor. inta ayaa u baahanahay. marka isku walaaqo ayaan ku darayaa haddana ila socda biidnillah. hadda waxaan ku darayaa sonkortii sida aad u jeedaan. sonkorta qaando ayaan ku daray, qaandadii labaad ayaan hadda ku darayaa, qaandadii saddexaad ayaan ku darayaa, haddana qaandadii afaraad ayaan ku darayaa insha allah. waa 4 qaando caano ah, 4 qaando oo sonkor ah, 3 koob oo biyo ah insha allah. bakeeriga yacni biyaha lagu cabo 3diisa oo yacni biyo ah. inta ayaan isku walaaqayaa, kadibna waxaan ku darsanayaa haddana waxaan soo qaaday warangadii ama cornflourtii. hal qaando ayaan ku daray, qaandadii labaad, tii saddexaad, haddana waxaan ku darayaa tii afaraad. marka inay isku qiyaasan yihiin ayaa la rabaa. waxaan ku darayaa carfisadii vanilla powder. haddana waxaan ku darsanayaa food colorka hadduu yacni igu yaraado midabkii aan rabay uu ii noqon waayo, kisir kale ayaan ku darayaa insha allah, si uu iigu noqdo casaan yar oo guduud ah. midka aan isticmaalayana waa egg red waaye, ama yacni midabka guduudka ah insha allah. waan isku walaaqaysaa intuu yacni iska dhex galaayo. kisir kale ayaan ku daray asxaabteyda sida aad aragtaan. haddana dabkii ayaan soo saartay asxaabteyda insha allah. waan karinaynaa kastarka yacni ilaa adi 7 minute ayaan karinayaa, 8 minute insha allah. sidaa iila socda. buskudkiina fridge-ka ayuu iigu jiraa, freezerka. hadda marka asxaabteyda qaaliga ah, kastarkii ayaa dabka ii saaran sida aad aragtaan. wuu noo karkarayaa maasha allah. inta yar ayaan sameynayo maka dul tagaayo, waayo kuuskuus ayuu iga yeelanayaa, wuuna soo daadanayaa haddii aanan walaaqin. soo marka be patient, intaas yar ayaa sameynaysid insha allah. buskudkiina freezerka ayuu iigu jiraa sidaa iila socda. axibaa ilkiraam, hadda buskudkii ayaan freezerka kasoo bixiyey. kastarkii oo yacni dabka aan kasoo qaaday ayaan ku shubayaa. sida aad aragtaan isagoo kulul si u qiicaayo waad u jeedaan ayaan filayaa. marka waan ku wada shubayaa insha allah. kadibna haddana qaboojiyaha ayaan ku celinayaa yacni fridge-ka. haddana waxaan yacni sameysanaynaa step 3 maasha allah. isla yacni kastarkii ayaan karinayaa. stepka sidii hore unbaa maraya insha allah. cabirkana waa intii hore min 4 qaando, 4 qaando oo yacni kastar ah. kastarkana waxa waaye cornflour, 4 qaando oo caanaha bowdarka ah, 4 qaando oo yacni sonkor ah, carfiso vanilla iyo yacni intaas waaye. kan noocan kalarka ma dhigaayo, white-ka ayaan ku dhaafayaa insha allah. haddana carfisadii ayaan ku darayaa sida aragtaan walaalahayga qaaliga ah. biyihii ayaan haddana kusoo darsanayaa insha allah. 3 koob oo biyo ah biidnillah. sidii cabirkii hore 3 koob oo biyo ah ayaan yacni tii horena ku qasay, tanna 3 koob oo biyo ayaan ku qasayaa maadaama cabirka uu seem yahay. marka walaalahayga sidaa iila socda. kastarkii asxaabteeda waan soo kariyey qaybtii cadeed sida aad u jeedaan. waxaan ku dul darayaa alaabtii hore iigu diyaarsaneed ee freezerka aan kasoo bixiyey. iyadoo qiiceysa ayaan ku darayaa sida aad u jeedaan. kadibna fridge-ka ayaan ku celinayaa. waxay ku jireysaa ilaa 2 saacadood insha allah. marka axibaa ilkiraam, alaabtii freezerka waan kasoo saaray. markii aan kasoo saarayna kadib yacni fruud ayaan kusoo sharaxay. fruud ayaan decoration ahaan uga soo dhigay sida aad u jeedaan. fruudka isticmaalayna waa 3 nooc oo kaliya.
waa strawberry, kiwi iyo mango. Inta ayaa isticmaalay waana ujeedaan sida aan usoo saaray. Marka hore kiwiga ayaan saaray, strawberryga ayaan sii kor saaray, cambihiina dhexda ayaan ka saaray, wax yar oo strawberryna waan la saaray. marka insha Allah qof walba uu fahmi karaa ayaan filayaa maadaama aan rabin inuu yani videoga igu sii dheeraado idinkana aad igu caajistaan asxaabteyda qaaliga ah. marka asxaabteyda qaaliga ah sida ayuu ku soo baxay quruxda leh ee aad aragtaan ma sha Allah tabarakallah. waa wax aad u easy ah oo yani aad u fudud qof walbana sameyn kara insha Allah hadii aad isku daydid. marka walaalahayga qaaliga waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen ma sha Allah oo soo tijaabin doontaan idinkana ama sameysan doontaan insha Allah. marka hadii aad ka heshay oo nagu cusub tahay nagu soo biir si aad ula socotid waxyaabaha cusub iyo wixii ku dhaafay insha Allah. hadda hore noola sii joogtayna asxaabtaada la wadaag insha Allah. wixii ra'yi ahna igu soo qora meesha commentiga insha Allah. feedbackana waa igu soo celin doontaan markii aad soo tijaabisaan biidnillah sidoo idinkugu soo baxo. marka aad ayaa u mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ah sida mar walba ay dhiirigelisaan igula socotaan. jazakallahu khayr ayaa idin leeyahay. haddana waxaan idinku dhaafayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. fi amaanillah. بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة والصدق والوفاء قلوبنا حليمة ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه وزالت الحدود وجاءنا جحيم. يا عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة. شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش